dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in dayax gacmeedka Shiinaha ka baxay ee xakameynta uu sababi karo musiibo weyn markuu dhulka ku soo dhaco. Afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca xukuumadda Washington ee Pentagon ayaa warbaahinta u sheegay in saaruqa Shiinaha lagu magacaabo Long March 5BY2 uu dhulka ku soo dhici doono wixii ka dambeeya maalintii bari oo Sabtida ku beegan tahay. dowladda Shiinaha ayaa yareysay khatarta ka dhalan karta soo dhicidda dayax gacmeedkan iyadoo saadaalisay inuu ku dhici doono badda gunteeda. wargeyska Global Times ee ku hadla afka dowladda China ayaa lagu daabacay warbixin uu lagu sheegay in saaruq la xakameyn waaye oo gaaraya 20 tan uu ku dhici doono biyaha caalamiga isla markaana uusan waxyeello u geysan doonin. qaar badan oo kamid ah dowladaha reer galbeedka ayaa soo saaray warbixino ay walaac ugu muujinayaan xaaladda dayax gacmeedka Shiinaha oo la filayo inuu soo dhaco maalmaha nagu soo aadan, balse wararka ugu dambeeyay ayaa sheegay in gantaalka Shiinaha ka fakaday uu dul wareegay Soomaaliya sida uu goor shaaciyay telefishinka Sky News ee dalka Ingiriiska. 90 daqiiqo kasta ayuu gantaalkan adduunka ku wareegayaa wadamada badan ayuu soo dul maray. caawa Soomaaliya uu dul taagan yahay sida la soo warinayo.